madaxda ugu sareysa maamulka Galmudug waxaa soo kala dhex galay khilaaf aad u xoogan oo gaaray heerkii ugu xumeed xilligan. Khilaafka ayaa soo bilowday kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay go'aan dhexdhexaadnimo ah ka qaadatay khilaafkii Qatar iyo Khaliijka, taasi oo madaxda maamulka Galmudug ay ku kala qaybsameen. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay xilligaasi in uu la saftay wadamada Khaliijka, halka madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug uu ka soo horjeestay arrintaasi. muran xoogan ayaa ka dhashay kala qaybsanaanta mas'uuliyiinta maamulka Galmudug, waxaana soo baxay mooshinno laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug iyo madaxweyne Xaaf, waxaana la sheegay in xilalkii laga qaaday labadoodaba gudoomiyaha iyo sidoo kale madaxweynaha. hase ahaatee wadahadallo kadib ayaa la xaliyay lagana gudbay khilaafkii madaxda Galmudug iyo mooshinadii laga keenay intaba. xilligaasi wixii ka dambeeyay waxaa bilowday isku darka maamulka Galmudug iyo maamulkii ahlu sunna ee ka arrimin jiray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. shir lagu qabtay magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti ayaana lagu soo gaaray heshiis ay wada galeen madaxda maamulka Galmudug iyo kuwii ahlu sunna. dib markii looga soo laabtay kulankaasi waxaa bilowday isku darka labada maamul. xildhibaano cusub ayaa la dhaariyay oo maamulka ka soo galay dhanka ahlu sunna, waxaana goobta lagu dhaarinayay goobjoog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug. hase ahaatee waqti yar kadib gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa ka hor yimid habkii loo maray isku darka labada maamul iyo fulinta heshiiskii lagu soo gaaray dalka Djibouti, waxaana ku garab istaagay arrintaasi madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug. khilaafka ayaa mar kale xoogeystay, waxaana madaxda maamulka Galmudug ay kala degeen magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. mar kale waxaa bilowday mooshinno, waxaana xildhibaano kulan ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug. hase ahaatee arrintaasi gudoomiye Cali Gacal ayaa iska diiday kuna tilmaamay waxba kama jiraan. dhanka kale xildhibaano kulan ku yeeshay magaalada Cadaado ayaa sheegay inay kalsoonidii kala laabteen Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha maamulka Galmudug. dhankiisana waa uu iska diiday xilka qaadista xildhibaanada ay sheegeen inay ku sameeyeen. mar labaad xildhibaanada Dhuusamareeb ku sugan ayaa mooshin ka keenay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi. Cadaadana waxaa ka bilowday mooshin ka dhana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka Galmudug Xareed Cali Xareed. kadib dood xildhibaanada ku kala sugan Cadaado iyo Dhuusamareeb ay ka kala yeesheen mooshinada gudoomiye ku-xigeenka iyo madaxweyne ku-xigeenka ayay sheegeen xilka inay ka qaadeen labada mas'uul, waxaana sidaasi xilalka looga qaaday afarta mas'uul ee ugu sareysa maamulka Galmudug. ma jiro mas'uul aqbalay xilka qaadista lagu sameeyay, waxayna ku kala tilmaameen in arrimaha ka kala socda Cadaado iyo Dhuusamareeb ay yihiin kuwa aan sharci ahayn. waxaa sidoo kale magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb looga kala dhawaaqay guddiyo doorasho, kuwaasi oo u xilsaaran doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug iyo gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug. lama oga halka uu ku dambeyn doono khilaafka madaxda maamulka Galmudug oo hadda gaaray heerkii ugu xumaa, maadaama xilalkii laga qaaday afarta mas'uul ee ugu sareysa maamulka Galmudug dhammaantoodna ay iska diideen xilka qaadistaasi la sheegay in lagu sameeyay. Shaafici Shariif Maxamuud, SAB TV, Cadaado.